afirse Crystal Palace fans keeda waxa inkastoo ay expectation kooda aysan ahayn sida Arsenal waxa laga rajeenayn oo hadda expectation kooda ay ku egtahay inuu top 10 u soo galo form fiican oo ay ku socdaan xagga League Cup-ka iyo FA Cup-kana haday helaan ay iskaga qancayaan halka Arteta looga baahan yahay tripkan minimum inuu top 4 u tago oo Champions League football uu galo dhanka kalena Europa League ama Cup kale inuu qaado maxaa ka leedahay meesha markii loo fiiriyo labada coach iyo expectation ka laga rajeenayo Arteta ama aragtay waxa waay Vieira Somaha pressure hadda saarantahay zaid Arteta saaranta maxaa la play sanadka hore wuxuu ahaa ninka ugu maaragtay lacag isticmaalka badan ee Premier League ee players soo gato 100 ka badan ay isticmaalay ashwell sanadkan sidoo kale uu sameeyay marka wax yar laguma fadhiyo at least inuu cup soo qaado inuu top 4 galo though will title contenders hadda ma aaminsanay hata le maaragtay Man City waxaan inaga xoog badan yihiin seriously waxaan Haaland dhahayo hadda waxa aaminsanay Liverpool nagu xoogan tahay ma fahamtay ayadana waxa waay meel la saaraa asoo dadka maaragtay oo waxa waay attack-gooda shabka ee hadda marka ani title contenders meena top 4 ado galo maaragtay dhib ma laha laakiin haduu gali waa sheekada Arteta kabiis oo qaadanay baagtiisa iyo meelaha ka yaalo marka waxa leedahay minimum kiisu waa inuu top 4 u tagaa ka waran hadii uu tagi waayo top 4 Champions League ciyaar uu miskareeyaha ama hadana uu dhanka kalena uu soo qaato Cup European Cup hadda inuu for example haduu uu soo qaato Europa League Cup uu soo qaado kale dhimala hadii top 4 oo sagelin Premier League oo 5 iyo 6 hata 7 haduu ku dhameysto laakiin Europa League soo qaado still waxana moogtaa Champions League ku jirna that was our main focus so Arteta has a good plan so that waxa waa inuu maaragtay Europa League soo qaado ama okay kale oo la imaado top 4 oo soo galo marka Europa League soo qaado wuxuu ku jira Champions League wax dhibana ma laha intaas